قدوميها جالية يتبوري مستر مبارك قارو بحي magaciisa markii hore maan xusin laakiin isagu waa gudoomiyihii de magaalada uma baahna in maaragtay la xuso isaga ma ka soo dhaweynaya sidoo maaragtay wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland mudane Saleebaan Ciise Axmed Kaar xagla toosiya malaha idinku taqaaniin safiirka Somaliland ee wadanka Sweden روضة جامع علمي حلبان صفية عمر يره وكتر سان ديجان كا موندال أما ديجان كا قبل كنا ينتجنا هاي وكيل هذا حسبي هذا قرنكا هذه أي تاي كلمية هي هذه أي تاي وعيد يا هدي أي تهاي وطني با شاريدا شرفت لي رئيس Somaliland هل كان كسوق قيب كشيء حفلة سودوين تا أما مناسبة أن نكون سودوين إنه وسير كنا عافيماتك إيو وفتي الله الصعدة لما أنت بوحن بكم سلام يا مركلة سلام تا إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت أكيد كما تلقين إن هذا البدن إلى هذا مهمته وحويه وحنو نهاي جالية رئيس Somaliland أو هل كان كودغان غوتنبرغ أو عاصمة اللبنان وطن كيسودان ويبدأين تذكر Somaliland ديكن لكن مدن وزير هذه نغير اكتوس هذا طلب انت الملا جالية كما بدنين ونوكا بدن نهاي وقت كونو قرباها dadka oo ku beegnaa waqti shaqo iyo waxbarasho fursadahaas waxaan ugu leeyahay jiray marka ay tahay weekendada ama toddobaadku markuu dhamaanayo ayaanu aad isu helaa sida aawadeed waxaan rajaynayaa inay fariinta qaadi doonto oo ay gudbin doonto kuna filan tahay inay xambaaraan dhambaalka aad sido waxaan kugu soo dhaweynaynaa magaalada Gothenburg gacmo furan شعب رئيس Somaliland كودغاني waxay xiiseynayeen aragtidaada waxay baahi u qabaan in ay mar walba arkaan oo ay xiriir la sameeyaan wadankoodii iyo mas'uuliyiintii xilka ugu sareysay qaranka hayay marka ay la kulmaana waxay u sii tahay farxad aad iyo aad u weyn marka muhiimadda aan imika isu soo taagay ma ahayn khudbad jeediyo in aan ka xog warramo sida ay tahay laakiin waa in aan idhaahdo مدن وزير وحن كبسوا دوين دونا هدي لهاي كديجو iyadoo qoliyad la iga dambeyn doono inaan shirka weyn oo furo jaaliyadu aad la yeelan doonto ujeedada ugu saabsan yahay ay tahay inaan kugu soo dhaweyno xafladan oo aan u qabanay soo dhaweynta wasiirka caafimaadka ay ujeedadu ahayd waana salaamantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh هذه مهندسين يا مستر مبارك قدوميها جالية Somaliland Gothenburg إمك waxaynu siin doonaa insha Allah كلمة كوبان ما دام halka caawa Somaliland ku dhantahay wakiilada xisbiyada saddexda xisbiga Somaliland ayaynu siin doonaa كلمة كوبان waxaynu ugu horeysiinaa xisbiga ucid waxa insha Allah halkan ka badan doona Xuseen Cabdi Daahir dhamaantiin baa wada salaamaya waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh هذا البدن هالكن وما يمن إنان إلهه كلي وحليني ده كل وقت جالس كير عنانا أرن بينه وده وسير كواينه مرتي وهير قرب من وجهه وحن كده جيا وسير كعانا منه ودعية وناتية سود ويا مركا أنا قلت لمن هالك وحن كسلام يا أو السلام هالكن وقدر يا مدحوينها قرن كسمال مدن أحمد محمود سيرانيو iyo gudoomiyaha xisbiga Faysal Cali Waraabe iyo hadda waxaan salaam uga diray isagana gudoomiyaha baarlamaanka ahna gudoomiyaha wadani Cabdiraxmaan Cirro kullu magaca kala saddexaadna ma iyo gudoomiyaha guutida iyo Xaaji Cabdiraabdi sigil ilaa weyn أنا أقول يا مجا حسبك أعد وحن أرى لها وسيرك
waxaan halkan hambalyo anagu kulley inta badan ma waxa la yiraahaa xisbiyadu way qaar waaweyn iyo qaar yar kale leeyihiin kulley xisbiga dhalinyarada u badan wasiir nin dhalinyarada maadaama tahay hambalyo ku leeyahay qaranka Soomaaliland rag adigoo kala ah ay u baahan yihiin waxaan rajaynayaa insha Allah in badan wararkaaga iyo waxaad qabatid hambalyo ilaahayna ku fududeeyaa waan ku leeyahay waxaan rajaynayaa insha Allah inaad guusha aad wadid iyo halka aad wasaaradda caafimaadka gaarsiisay inaad ka sii badisid annagu haddaan xisbi u cidhaan nahayna diwaaga cadaaladii iyo daryeelkiyo mar walba anagu wasiirada iyo wixii wax qabanaya aad iyo aad baan u soo dhaweynaa insha Allah marka hadal badan oran maayo waxaan leeyahay oo halkan dardaaran uga dirayaa ummadda dhammaan Soomaaliland meel kasta adduunka joogaan iyo kuwa gudaha joogaba war ilmaadarayaal war walaalayaal rag iyo dumarba taasha qabyaalada la yiraahdo la dagaalamo xisbiyadu samaysanay cadawgana ilaahay anigu doosheedna iyo kulley abaan yaraada abaan weynaadabay maxay aday xisbiyadu samaysanay wadankan anigu haddaan ku hadlo xisbiga ucid afkiisa in dhibaato iyo mudaharaad iyo problem iyo wax dhibaata halkan uga duuleynaa wixii dhibaato wadanka Soomaaliland la raba yeelinayna halka uu xisbiga gudoomiyaha marayna ayaanu ku wada raacsan iyo madaxweynaha iyo wax kasta laakiin wixii siyaasadda hoose ee siyaasiyiinta iyadu isku hayaan waxaan rajaynayaa inay dhameeyaan cadawgeena ilaahay jabiyo mar walba gudoomiyaha waxaan leeyahay adigu waa salaamantay wasiirkan waxaan leeyahay insha Allah halka ka sii wad reer boorna waxaan leeyahay reer Suudanba waa isku duubnaada xisbiyaan sameeyay insha Allah halka ka wada waana salaamantay wixii da khaldan aan idina ka raali hada insha Allah aad buu xuseen u mahadsan yahay kelmadihiisa qiimaha badan uu yiri iminkan waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha magaalada Gothenburg xisbiga wadani Xamse Xuseen Yuusuf Cali Shabeel soo dhawo Xamse marka ugu horeysa waxaan ku salaamayaa oo aan ku soo dhaweynayaa magaalada Tabori wadana wasiirka caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland Salebaan Ciise Axmed Kaar waxaan kaloo aan salaamayaa marti sharafta fadhida meesha oo ay ka mid tahay safiirka Soomaaliland ee wadanka Sweden Rada Safiyo Xildhibaana dhammaan gudoomiyaha iyaga jaaliyadda Soomaaliland isna Tabori fanaaniinteeda iyo abwaaninteeda Faarax dhammaan shacabka fadhidweynaha fadhiya ee marti sharafta ee aan isugu nimi wasiirka soo dhaweyntiisa mudanayaal iyo marwooyin dhammaan salaamu calaykum alaykum marka hore salaanta islaamka aan ku salaamaya salaan kadib waxa horta in maanta isugu nimi xisbiyadu hadalka ugu horeysay Salebaan iyo shacabkan meesha isugu yimid soo dhaweynta wasiirka Salebaan cadaalad baa u yar falo waxaan salaam markii hore xaggan wuxuu ka soo bilaabay xisbul xaakimkeeda xisbiyadeedii mucaaradka ahaa buu isna ku horeysay horta uu ku hadsaday inta kadib horta markii hore waa maalin qaran waxaan soo dhaweynaynaa madaxdii inooga timid dalkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale oo waliba aniga ii wehelisa reer buu hadlo halkii reer xamarkee gadaal baan ka soo galay wasiirka isagana meelo badan baan iska soo galnaa taasina way ii wehelisa soo dhawaan leeyahay wasiir hadal kale maanta ma furna wasiirka soo dhaweyntiisa iyo danta qaranka marka hore waynu diyaar baynu wadanahay axsaabta afkaarta way ku kala duwan yihiin wax hoose waa la isku kala duwan yahay waa la isku qabanaya laakiin si qarannimada marka hore feerasti ah qarannimadana waynu u taaganahay cid kastoo qarannimada ku soo duulasha iyo cid kastoo godololo kastoo ay leedahay qarannimada sidii aynu ugu fayn lahayn ayaa waajib inaga saaran yahay wasiirka waxaan leenahay ku soo dhaweeyo Tabori wasiir rag iyo dumarba dhammaan Jamhuuriyadda Soomaaliland shacabkeedu waa ku diyaar waliba wasiirada wax qabadka muujiyay ee min gobol ilaa degmo maamul daadejinta sameeyay baad ka mid tahay ku soo dhawaabaan ku leenahay wasiir dhammaan shacabkana waxaan leeyahay iyo dadweynaha meesha isugu yimid waa salaamantii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
iminka waxaynu ku soo dhaweyn doonaa xubin ka mid ah guddida xisbiga kulmiye ee Western Youthland ama Yetebori Maxamuud Xaaji Aadan iyo kuweyna. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaantiin. Waxaan si gaar ah u salaamayaa martida sharafta leh halkan inoo timi ee uu hogaaminayo wasiirka caafimaadku Salabaan Ciise Xagla Toosiye. Anu Xagla Toosiye waan odhanayaa magacaan garanaya halku ka yimi waxa la yiri beri xagga roob aad uga dii waayo meentu roob badan ka daay ayaa geel u dhalay oo markaa geelin rigihiira kici kari waaye dabadeedna adu roob abaar baa dhacday waan kala horeysiiyay deedna xoolihii oo dhalay oo xilli abaara ku beegmay ayaa roobkan u daadin rigihiira kici kari waaye mid walba xagashi kala bixisa roobkii baa sida Xagla Toosiye loo bixiyay Xagli buu toosiyay magac wanaagsan waxaan rajaynayaa maalan haddii wali xag laynaga qalloocaan inuu wali toosiyo kollay qaran gufayn lagama waayo oo gooromba odeedu waa gacanta loo haybu yahay Hadraawi marka wasiirka iyo madaxda kale sharafta leh iyo marwadii wasiirkeenii hore dhammaan safiirada rooda dhammaan marti sharafta kale si qiimo iyo qaayala baan leeyahay magaalada ku soo dhawaada aadi Maxamuud mahadsan yahay halka waxaynu ku xidhaynaa in yarna aynu kaga nasan doonaa baabkii siyaasadda iyo xisbiyada waxa aynu ku ilaabaynaa haddii aan la yiraahdo Faarax Murtiile oo ay maaragtay xoogaa isaguna doonaya halkan inuu mar labaad ku soo noqdo stage-ka. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان با مرتي شرفت مرويني مدنيال وسلامتين وحان سكارة وسلامة كل يلاك وسلامة يا وسير كنا مدني سلمان عيسى أحمد كار وحنا يسودو عادي عاد بان كوها بلينا يا وسير لنا يرى وسير إن بدن ولا إن بدن مش لافنا إنه مركا عادي عاد بان كوسنا وين يا يوروب وأي مرة دينا وعن يوروب أنا قلت تيدو ولا يسودو وين إنجليز كان كيف وحان كله waxaan kale soo dhaweynayaa oo aad ugu faraxsanahay inanta safiirka iyadoo yar baan garanayaa Abu Dhabi waan isku hayadiyo family ko dhan marka rooda jaamac aad iyo aad baan ku hambaleynayaa walaal marka waan ku soo dhaweeyay marka wada arko yaa aniga aan ahayn iyadoo wasiir ahayn oo yar baan iska garanayna marka family garanaya marka aad baan ku hambaleynayaa muxuu ahaa Safiya Umar Yare aad iyo aad baan ku salaamay walaal Caasha oo safiirkina qabi jiray وسيركي أرمى دبده فقره عليه أرحمه إذا عادي أدون قيمنا إيو قدامي هالشلة يسحبك حلو يلمان معها وين ولا سلامة يا وحنا كان عليه ما حلي ده محل بانك سيامي مثال بانك كلها ولا جي مقع ما بحين سياسة ما قلين وحنا قلين لكن مدن سلبان إيش وحندون يا مقع حقلته وسيرنا كبدل مات waxaa laga yaabaa in waxaan u bedelayaa arrimo badan awgood waxaan u bedelayaa sidoo wax u wado sida aynu ugu faanayno muxuu ahaa original ahaan isku raacaymeedna waa meel baan ka wadanay marka imika laga bilaabo isaguna ha seef galo maskaxda ku qabta dadka ku qabta waxaan u bixiyay qaran toosiye waxaan cayn ka walahay waa tirtirsin iyo dhiirigelin inuu isna si muxuu ahaa intuu qabtay ka sii badiyo ragga kalena ay ku daydaan oo qofka muxuu ahaa midaan wax kaga doonaya maaha midaan iska leeyahay maaha waa qaran toosiye marka siyaasadda original ahaan meeshan ka soo anaga isoo ka soo jeedna la eego iyo meesha xilligu ku soo biray siyaasadda la eego sidoo wax u wada la eego mid kastana cayn ka noqdo marka qaran toosiye tahay qaranka si toosi dadka ururi isu tub shacabka Soomaaliland waxaan ku leeyahay marka dad isqabtaan siyaasaddu isqabtaan ha kala raacina gabay baan ka sameeyay waxaan ku wari sida toojada ayaa toojada waxa jirta hal markay dhasho ilmaha tuurta sida toojagel oo ilmihii tuurtay madaxdeena isku tola haday kala tagaan tuurno qaat hadii madaxdan istiido idinku ha kala raacina isku tola way haday kala tagaan deena kala muxuu ahaa
waddankii oo kala jabay weeyaan dadkii oo kala tegay weeye dadkii oo kala qaxay weeyaan markaa kala raacina isku tola waliba waxaan ka hadlay xisbiyadow idin kala raaci mayna waa isku kintolayna sankaa iskaga tolantiin qaranka Soomaaliland ma isku tolantiin kaasaa idinka wada dhaxeeya ismana maagi kartaan ismana dili kartaan xoolaan idin wada dirnay geel baa wada raacaysan ninkii dayaca waan eriyna حق قبيلات waxaan ku yiri qabyaalad baa naftii naga jartay anu qabyaaladii ana bilaabo on ka hadlo waxaan ku yiri gabay baan ka tiriyay waxaan jeclay gabayga in meeliyo qaado qaar baa dhinac kale u duubay si fiican iga duub wuxuu yiri muxuu ahaaye qabiil waan ka weynahay hadaa qolo ay moodeen qaarada midoobaan oo qiray ilaahay boqolaal quruumood ayaan qaadigooda had boqonka kiisama wada ayaan qayb ku leeyahay qalwo anigu reeruguma jiro qolay samaysteen qalwo anigu reeruguma jiro qolay samaysteen qaangaad ilaa habeen ka dhigay qaari maamulane ragna waxaan qoysnahay ninkan iga qabooyeen mar hadduu si qoodha iska bido way isqabsanayna qof kastaana waa qolada iyada ha ugu qiroonin qudhiisa la hubiyaa adoon qada hadalkiisa qof kastaana waa qolada iyada ha ugu qiroone qudhiisa la hubiyaa adoon qada hadalkiisa qasabna ma aha ruuxa isigtaan inuu qunaada mid qariban ayuu noqon karaa qalqaalaya Somaha qofkaas ka walaalaha iyo maadeerada iyo qoridinu no ma wada wanaagsan karaan qaar badan qalqaalina ku jira markaas ka raacin qof kastana waa qolada iyada ugu qirone qudhiisa la hubiyaa adoon qaadan hadalkiisa qasabna ma aha ruuxa isagtaan inuu qunaadaaye mid qariban ayuu noqon karaa qalqaalaya qaabilba haabil muxuu qorta ugu gooyay sawaalkii ma ahayn qodxan buu adeerku dhigay qoonta nabigeena calayhi salaam adeerkii baa qodxan dhigay hadii la iskaga naxayo maxaa walaalnimo ama wada dhalasho deetaas marka qofkii wanaagsan ma raacaysa quruumaha midoobay iyo dadka qaaradaha buuxshay qoys iyo waxa laga ulkamay laba qof weeyaane waxa qaar qaangaar ka dhigay qaybna dib u reebay waa in qeexday nolosha iyo inaan qalad ka weynaanin waana qaali awlaadu iyo qiimo saayida marra ubax qurxoon oo ishu qabata weeyaan marra qurub laga jabay waa qayb laga jaray marra waa quruun beermaysa iyo qooman ka hadhaye qalad iyo wareer lagu madho qoys leedahay qorshe iyo waxa loo dhigaa qodob ay raacaan qacda waaga ilmo waalidkan la hadlaya imika anagu waxaan ugu soo batay wasiir gabadha aan la furay gabadhba maaha waa in bar la isfuraa ninka aan naag furin ninba maahaba mushkiladaasaan haystay markaa gabaygan wuxuu ka turjumayaa qacda waaga ilmo waalidkii qaylo hurinayo oo hadal qaraar iyo xumo la isu quuraayo ilmo qaabada lagu korshay oo qaxar ku weynaaday isaguna qalqaal noqda laga qatooba ilmaan qab lagu korinin oo aan qiimo lagu sheegin oo ay qaraar lagu bahdilay quuqle iyo liite naanays qariman loo baxshay oo lagu qasoobayo ilmo qaabada lagu korshay quursi laga buuxshay isna quus naftiisu ka qiimaan mudanin ilma qadaf haduu geysto aan waana loo qoraynin qunyara aan wax loo sheegin oo qawda laga saaro ilma qaabada lagu korsho ilqanshaha buuxshay isna qaatil buu noqonayaa qof bixinaynin ilma qalinka iyo buuga aan la qorsheynaynin oo qaladka meesha ka qayb la fahansiinin quraacdi iskuul aadaya oo qadada soo doonta oo macalinkiisi qawado qeyrkii wada dhaafo isna taab qasaar buu noqdaa quus mid laga joogo ummadii hay qoro hubi waxay qaraysaa laabtaydu bulsho qaniya uu dhali karaa qoys hagaagsanay bulsho qaniya uu dhali karaa qoys hagaagsanay mid qariban uu beeray ka qaloocani السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه يوم تيجي فرح مرتيلة وها أن إمك كحجينا يا عشان براله حاسي وسير كارمها دبدا سومال لان هرلا ونحرسته مصطفى قاره وحنا عشان سولو وحاجات من الدفالة والدوسة هاي وقع الدفالة إلى الدفالة هذا وقتني خلنا كلا الله سعدا ينو جاليد سومال لان الدفالة أو جاليد أول فرعونة أو ينو هالكافرديا يجنو حنا لنا هذه البلد ما تتين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعد ما هتسنتين وسيرك مرت شرفك لما ضدك ما تعاوي سوي يعني حفلة دنات كوفر بدن له قدوميها يتبوري لما بعد ما هتسنتين أنا وحنا كسعودة قلت فعلا ما اللي يلعبه تفني القصة أيام كسعودة هذه بعد ما هتسنتين waxaan kala salaamay wasiirka noo yimid safiirada dhabaad gudoomiye habis wada timid saa sheegtay waxaan ahay xaaskii maxamed saalax nuur fagare ilaahay uu naxariisto
wax badan ayaad ogeydeen Somaliland soo qabtay safiiro kaliya ma ahayn wuxuu ahaa mar gudoomiyihii baarlamaanka afar sano ka soo qabtay Somaliland intuu joogay mar wuxuu ahaa gudoomiyihii baarlamaanka mar wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda mar wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenkii Maxamed Axmed Siiraanyo kulmiye ilaa intii markuu safiirka ka noqonayo ka dhimanayay 5 bilood soo kasii maqan baabu safiirnimada ka tagay saadooqtihii gudoomiyihii ku-xigeenkii uu ahaa markii hore ka saydixi afartaa jiru Somaliland joogay ka soo qabtay intii horena dee waa la iska wadoogaa wixii hore dee intii hore Soomaaliya marka intuu geeriyoonayay dee Somaliland dalku ahaa marka hadii Ilaahay yiraahdo dee oo taaytii Ilaahay baa u timid laakiin waxa aad u qurux badan oo wanaagsan oo ama kulmiye ama wuxuud ama wadani aanu ka dalbanaynaa in agoomihii dee dadkii soo halgamay in la ogaado oo xaq la siiyo aad u qurux badan markuu ninku dhinto dee maaha in la yidhaahdo ninkii hebel waxaasuu ahaa laakiin la iska wahayo dadkii soo halgamay ayaa wanaagsan anagu waxaan iska joognaa meel halkaas cidna war nooma hayso laakiin anagu kama hadlo Somaliland intaan waan daba socdaa oo markastoo meel wax lagu qabanayo waa dhacdaa waayo aniga magacayagii waaba ku dhanbaa siduu yahay sidoo ogeydayba magacayagii baa ku dhan laakiin la iska wahayo wanaagsan dadkoo dhanna ma aha dee in waa in la soo jiida ilaa galbeed ilaa bari in la soo jiida wanaagsan ma aha in la yiraahdo jahad baa ku dhimatay ma aha in la yiraahdo kornay baa ku dhintay anagu xaq weyn baan hadaan nahay sool iyo sanaag iyo cayn iyo buuhooda baan ku leenahay anaga waa horeen dhawid waan ka hadlay ragga iyagii oo dhammi wuxuu waa taanigu habeen dhawid cali khalifa ku tufay ana iga qabatay waxaana iga qabatay cali khalifa maanta waan igu sheegay waxaan yaanu kuligay maaliman meel ay tahay xaflad kamana hadal waayo inta uu marxuumka dee uu noo maxaan ku dhahaa mootana anigu maalimanin laakiin waxaan ugu tufay waxaan idhi ninka intaasoo dhan joogay Somaliland maxaan ku dhahdaa inta xoolihiisu yaaleen xaqi ku lahaa habeen walba nala joogay hargeysa kilaab isagii marxuumku saasiisa laba qof oo isaga dhawaamay jirin haddana ilaa baa mushkiisu ahaa ilaa erigaabo ilaa meel kasta imikana anaga nadala habaabiyey imika intaa daynamada dhalinyaradii waxalla waxay ka ogyihiin markii Somaliland markii la qaxay waxba kama oga maanta wixii dhacay dadka iyaga gabariguna waxaanu ka ognay dhalinyaradaas maanta xuduudkii buuhoodii cayid iyo hadday laascano tahay ma oga laakiin maanta isagu ogyahay xuduudka halku ahaa marka ma aha waan iga kuuri habeen dhawada naga xabaalayagan karantid maaha inaad barina naga rabtid oo dadkaygina fogeysid maaha habeen dhawad aad baan ugu xanaaqay waxa weeyaan dee anagu dad Somaliland daraanu nahay dad halkaa degan baanu nahay dad xuduud laanu nahay dad aad iyo aad xuduud halkaa wad noogtihiin odayaashii xuduudkaa dhisay adduunkii maanta way iska hoyeen waa Saleebaan iyo dhalinyarada waxa maanta noo joogaa cali khaliif baa noo odaya cali khaliifna warkii uu noo raa waxaanu ku cali oo odayaal ka dhawey noo joog ma aha inuu narara maanta baa nidhi waayo odayaashaydi way dhammaadeen wax oday oo mutacalina maanta 20 nin oon hebel iyo hebel wada garanayo ayaa hargeyso keliya ku aasan oo meel keliya ku aasanay oo mutacalina oo ilaa sikhraan ugu weeyahay uu fagana ku xigo oo ilaa qashin ku xigo oo ilaa cali suudi ku xigo oo ilaa ciid ku xigo oo qaybo ku xigo waxa nin halkaa ku aasan lagama sheekeyn karo haddana waxa ku leeyahay maanta waa ka isagoo isaga wax oday noo jooga ma aha inaad nakaxaysi marka aanu Saleebaan waxaan leeyahay Saleebaan maanta wadankayga ka dhalinyaro waa xuduudkii intii ka yaryaray intii imika intii jirtay idinka ku xigay waa inaad maxaan ku dhahay wadankeedii noo soo celisaan waa inuu dadkeena wax la qaybsanaa ma aha inuu maanta dhaahno jawaaba taan ku leeyahay oo yaabka dhow maanta ma aha maanta inaynu tagno aynu la kaasa hadiya iyo kaasa hebel iyo kaasa haya inimadani yarda wala la habaabiyay waxba xuduud kama garanayaan lixdankiina ma garanayaan marka inuu dadkeeni waa inuu dhulkeeni iska dhisana waa inuu dadkeeni iyo caruurteeni dheena soo celinaa waa inuu xuduudkeeni ogaana waa inuu waxay tahay ogaana aan waxa ku sheegaya ilaa habeenkii aan waa yiri naafreeda soo baanahay laakiin waxa ay qof reehaysaa oo dadka awood ku dhalatay haddana waxaan gabadheed soola waxaan ku sheegaya ilaa habeenkii la qaxay ilaa habeenka caawaan kama dhex bixin daawac waxaan joogay meesha dabal weyn la yiraahdo aniga insan halgan iyo xasan buura jaamaca wada tashiga xaaskiisa inta daawacan ku dhex jirno leeyay
gabadha soolana waan ahaa waxa uu sameeyayna waxa ay dawadaniyada iyo halka ku dhalanay waayo ma ahan waxa soo tirada iyo waxa soo qornay ku dhintay ku noolwaan soo garanayna gabi saasan habeen argeed wuxuu wada cunayay wadankaygu waxay baan ognahay halka ku dhalanay joodam waa iyagi lama kala ku karo dadka soo jiida saleebaan oo dadka u taga oo dadka raad iyo baajadu laysay marba meel iyagoo danab yar ku dhacay laga soo jiidayo waxaan ku dadka loo tago oo loo furo oo xuduudka wada hadal madaxweynuhuna loo wada hadal fura oo dadka u taga oo wadaniga awood la saaraa saleeba waxa ma qaban karo laakiin waa dawladdu guurta ay xagga tagta anu saas sararana aadiya dawladda tii waan seewan waan kara waan xanaaqay waan qiiro iska raaya hada waxaan kusoo dhaweynayaa Safiya Cumar Yare oo ah xildhibaan Kenya Victoria agaarka Soomaaliya xildhibaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idin wada salaamayaa dhamaantiin. waxaan kaloon aad iyo aad u salaamayaa wasiirkeena Saleebaan Ciise Axmed oo runtii imka goor dhaweeytay igu yiri oo miyana digaranayn isku xaafad baynu haynaa. taasi waxay cadeynaysaa inaan gaboobay. waxaan aad ugu mahad celinayaa dhammaan gudoomiyaha jahliyada safiirkeena dhammaan intii ka geysatay gacan xoog leh in uu shirkani ama soo dhaweyntani ay suurta gasho. waxa kaloon aad u soo dhaweynayaa oo runtii aanan ilaabin de horta waxaan ahay gabadh fanaanada markaan doonana waan heesaa waan sukin qariya. waxaan aad u soo dhaweynayaa inamadayada qaaliga ah ee fanaaniinta ee aad moodo inaanu dadka iska xigno. la socdo walaalaha iswiidhana qarsoon baan ahay. waxa kaloon aan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo soo dhaweyntan qiimaha iyo qaayaha badan. wasiir hadda la soco neersina waan ahaa midwiferina waan ahaa Hargeysa wixii aad ka samaysayna hoostan kala socda. waxaan aad ugu mahad celinayaa in runtii de amaan hore lagu yiri qofkuna wixii uu qabto runtii isma qariyo. inaad tahay wasiir runtii ku dadaalaya inuu cadaalad uu wadankii ka muujiyo. aad baan idin wada salaamayaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan ugu mahad celinaynaa xildhibaan Safiya waqtigii oo inagu sii siqaya darteed waxa aynu uga faa'iideysano waqtiga waxa aan iminka ku xujin doonaa halkan oo aynu maartaan ku soo dhaweyn doonaa safiirka Somaliland wadanka Sweden Marwo Roode Jaamac Cilmi oo iyaduna ku soo dhaweyn doonta insha Allah wasiirka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مرتشرت ما تعرف كنا وقتي آدي أقول ما هالسنتين وأوجهاي أنا اللي كان علي قلنيا وأصلين محا حلقة قابل إني كسر شيء وحان إني كره علي قلنيا runtii qorshaha kuma jirin maanta Yetbori laga hadlo laakiin maadaama wasiirkii soo gaaray magaalada Yetbori ee magaaladeedina tahay marnaba way siin weyday inay shirka qabanin marka aad iyo aad baad u mahadsantiin dhammaan qolyahan ka kala yimi tuulooyinka ugu dhow haday tahay Trollhättan haday tahay Falkenberg iyo haddii cid kale la joogtaan reer Yetbori hayn aad iyo aad baad u mahadsantiin mar labaad waad ku soo dhawaanaysaa madashan aad baan waxaan u mahad celinaa gudoomiyaha iyo jaaliyada Yetbori iyaduna hirgelisay inay dadka gaarsiiso soo dhaqso badan in la sugu yimaado marka laga yaabaa inuu wasiirku isleeyahay direer Yetbori roodba waxaan bay sheegaysaa ma inta unba laakiin waxaad ogaataa wasiir inta waanu ka badannahay laakiin aad baan u mahad celinayaa inta halkan joogta waa in qiimo leh waxaan kaloo aan ka horeysiin intaan salaanta gaarin marti sharafta labada finaan maanta naga tumay aad iyo aad baad mahadsantiin masriin kor baad u qaadeen marka waan ku mahad celinayaa haddaan halka ka gudbo waxaan soo dhaweynayaa wasiir Saleebaan Ciise Xagle Toosiye aad baan ugu faraxsanahay say Safiya sheegtay iyadu waa midwife anu pharmacist baan ahay marka kulli waa dad shaqadaada la socda iyo waxaad qabatid waan ogtay markaad Hargeysa joogteen aan waan jeclaan lahayn ama student maadid
marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa nala joogtay maanta halkan inaad student timi inaad Scandinavian-ka joogtay maalmahan baan ku wareegaynay waan ognahay adigoo safar dheer ka yimi wadankii inaad haddana toos noogu timi marka isigaana neeshtraanta aad baan kugu mahadcelinayaa waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay oo aan runtii saaxiibadna ila ah aanan jeclahay Caasha Buraale oo maanta khudbad aad u qiimo badan ka jeedisay oo la taabatay aad iyo aad u mahadsantahay Safiya Umar siyaasaddan baan ku soo jiray waan ogahay challenge-ka hor yaala marka aad baan ugu faraxsanahay walaal inaad maanta meesha la joogtid waa ku mahadcelinayaa waana mabruuq baan ku leeyahay insha Allah guul baad ka gaari doontaa annagana guul baad noo soo xareyn doontaa haddaan nahay reer Tabaariya maan doonto waxaan kaloo salaamaya hablaha kale halkan la fadhiya gudoomiye ku-xigeenka dumarka kulmiya labadiina waa salaamantiin Safiya iyo Leila Sara qolihii ku raagay Suudaan Maxamuud bay nagala jooga Maxamuud waad mahadsantahay ku soo dhawaanaysaa halkan inta aadaan ka gudbo deeyagu waan iskaranaynaa aniga hadal badan iga sugumaysaan anoo mar labaad leh wad mahadsantihiin inaad noo timaado waxaan jeclaan lahaa inuu ka faa'iideysanayna khudbadda hadalada inoo soo jeedin doono wasiirku in halkan ku soo dhaweeyo wasiir Xagle Toosiye ku soo dhaw wasiir بسم الله الرحمن الرحيم gabdhaha waan ugu horeysiyaa way ugu mudan yihiin wax kasta oo wanaagsanna way ugu horeeyaan marka gabdhaha waxgaradka aqoon-yahanka odayaasha gudoomiyaha jaaliyadda gudoomiyayaasha xisbiyada xildhibaan Safiyo gudoomiye ku-xigeenka kulmiye abwaanada iyo fanaaniinta dhamaan waan islaamaya assalaamu calaykum iyo wixii reer SSC ka fadhiya meesha waxaan runtii Safiyo waa walaasha weeye daris baanu ahayn isku reer baanu ahayn isku xaafad baanu ahayn Faadimo iyo Fuaad aad baan saaxiibna walaaladeeda waa walaaladay waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay maanta Faarax Murtiile TV-gu ma ka daawan jiray isagoo ciyaalka baataajada u dhigaya aad iyo aad baan u taageersanahay waa fanaanka kaliya ee aan arkay ee caruurta danaya runtii caruurtu waa jiilkii berrito dalka hogaamin lahaa marka madax iyo mijaba in laga warhayo aad iyo aad bay muhiim u tahay marka waa ku hambalyeynaya thank you wadankiina waa ku casuumaya bariyaha maadimanay insha Allah inta markaan ka gudbo waxa runtii farxad weynaya inaan caawa halkan la joogo waan idinka raali gelinayaa inaan ka soo habsaamay aniga rooda safar dheer baanu galay safarkaana safar bay iga horeeyay marka Scandinavian-ku aad buu u tala xun yihiin magaaladana waxay geysay hotel aad u wanaagsan dabeetana waan gamay marka raaliga hada habsankan soo habsaamay waxaan kaloo aad uga xumahay inaan idinkala qayb gelin munaasabadii aad ku xusayseen maalinta taariikhiga 18 May aad baan taan idinka raali gelinayaa safiirada waan wada hadalay muddooyinkii u dambeeyay wadamadan Yurub oo badnaadaane 18 May Maydan Xuseen fadad xusaysana waxaad xusayseen maalin idinku aad ku danaysanaysaan oo ah maalin heblaayay ku soo hagaagto waa maalin shaqo aynu 13 xusno waa arrin aad u khaldan weeye sababaha uga soo gaari waayna ambassadorku uu casuumay waxaan isla 18 xuseen dibatan 14 xuseen marka waxaan jeclahay sida caalamka 18 ama jimcaha ku soo hagaagto ama isniinha ku soo hagaagto ama talaado iyo arbaco iyo khamiis ku soo hagaagto maalinteeda xusa ma aha wax ma aha
waxaan tagnay Norway 17 May bay leeyihiin madax banaanidoodii ay qaateen 17 May bay xuseen marka horta taa joojiya reer Yurub 18 May waa shaqo tagtaan 12 waa xustaan ma hadda xusnintaas joojiya please rooda haddaad 18 bisha xusaysan sanadka daba wadiin maana insha Allah inta markaan ka gudbo 18 May waa maalin taariikhiya waxaan horta rabaa inaan salaamo xaaskii marxuum halgamaa mujaahid fagare caash oo runtii soo jeedisay khudbad qiimo leh aad iyo aad baan soo dhaweynayaa way noo timid iyadii gabadheeduba Somaliland bay noogu timid sanadkii hore markaan intaa ka gudbo taariikhda Somaliland waa taariikh aad u dheer taariikhda Somaliland waxay bilaabantay 1884 Goosama markii gumaystaha Ingiriisku uu qaybta inoo helay ay taariikhdaas bilaabantay dadkeenu waa dad qab weyn halgamo badan oo kala dambeeyay ayuu Ingiriisku la kulmay kuwa dagaal leh kuwa af leh 60kii baynu qaadanay xorriyadda 26 Juun 60kii aynu xorriyadda qaadanay reer waqooyiga aynu nahay wanu isgaranaynaa hal caadifad la yiraahdo Ilaahay ku sallada oo indhaha iyo dhagaha ka rida caadifadii dhagaha iyo indhaha lahayd ayaa ina dhaxal siisay shuruud la'aan inaynu xamar ka degno dabeetana laba saddex wasiir baynu helnay dawladda iska dhamayd hadaynaga madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo wasiir oo dal calan la ah laba saddex wasiir baa layna siiyey cadaalad darro dhibaato xasuuq mushkilad iyo sid Soomaali qaldaan baa laynoo bixiyey ma taqaana Soomaali qaldaan waxa laynoogu bixiyey horta midkiina ma isweydiiyey Soomaali qaldaan waxa laynoogu bixiyey dal dhan baynu intaanu qaadnay qolo nidho hooya Soomaali oo nahay bilaa shuruud hadda bilaa shuruud aynu kala badan khaladkee wanu isgaranaynaa bilaa shuruud ayaynu nidhi hooya wixii dhiig ku daatay iyo wixii aynu dhib u maray iyo wixii aynu maandeeqda lahayn nin baynu geynoo nidhi hooya mal halkaa markay marayso halgan baa bilaabmay halgan ayaa bilaabmay lagu saxayo khaladkii SNM baa la aasaasay SNM way dagaalantay dad badan baa dhintay hanti badan baa burburtay dad badan baa qaxay laakiin 1991kii 18 May ayaa khaladkii la saxay ma aha May maalintan xorriyadda qaadanay 18 May ma aha maalintan xorriyadda qaadanay waa maalintan saxnay khaladkii aynu galnay 26 Juun 26 Juun baynu xorriyadda qaadanay 26 Juun baynu dal noqonay waa u ducaynayaa intii khaladka saxaysay SNM tahay ilaahay ha u dambi dhaafo intii gobonimada dhalisana ha loo duceeyay mujaahidiinta ee daraawiishta ku jirtay intaana ha loo duceeyay waxaase muhiima in khaladkii 60kii aynu galay aynaan dib u gelin waynu aragnay khaladkaynu galay 60kii price-ka uu inagu joogo inta qof dhimatay inta mid la xiray inta dad qaxay inta hanti duntay waynu garan karnaa baan malaynayaa khalad yar oo aynu galay dhibka inaga soo gaaray marka horta inaan khalad dambe dib u gelin 18 Mayna taariikhdaas ay leedahay waxaynu u baahannahay inaynu midowno 60kii mid baynu ahayn
lixdankii Somaliland baynu nahay khalad baynu galay khaladkiina waynu saxnay warsoo sama price ku doonaba khaladkii aynu saxnahay ugu joogo laakiin waynu saxnay waxa muhiim ah inaynu hadda priority number 1 waa midnimadeena inaynu midowno weeye midnimadaas waxa weeye in aynu reer ahaan u midowno lixdankii beel dhexe ma jirin darafyana ma jirin wali waynu qaybsanahay inta la leeyahay beesha dhexe iyo darafyada war goormaan anigu darafyada noqday qabiil iyo qoqob yeynaan yeelin lixdankii reero is yaqaano oo tirsan baynu ahayn aynu ku yahaano beel dhexe iyo darafyo midna yeynaan yeelin waana arrin aad iyo aad u khaldan weeye reer Somaliland baynu nahay waynu isnaqaanaa sidii aynu isku naqaanay aynu ahaan jirnay aynu ahaano intaynu leenahay beesha dhexe iyo darafyada wali waynu qaybsanahay waliba qurba joogtu waa masiibada mushkiladaha ka taagan wadanka runtaan idin sheegaya waa dadka wadanka qaybiya waxaan idinka codsanayaa inaad timaadaan wadankii sababtana waxa weeye qofkii wadanka yimaada isagoo bedelan oo muwaadin naga soo noqda website-yada waxa qora wiilal yar yar oo qayilaya ama khamri cabsan runtaan idin sheegaya waa fadlan lacag ku shubo waxaad warka ka qaadataana waa website-yada ay qorayaan dadka unethicalka ah unprofessionalka ee aan journalismka waxba ka ogeyn kuwaas aroortii furtaan waxay qoraan ay qurbo joog baan ahaan jiray hadda ma yihiin laakiin iga raali ahaada haddaan idin canaananayo waa un danta dadkeena iyo dalkeena website-yada ha eegina telefoon dir qofka aad ugu aaminsan tahay wadankii weydiiyo waxaad tiraa wadankii ka war laakiin website ha eegin been bay qoraan oo nin waliba waxa ama lacag lagu siiyo ama uu isagu dan u arkayo qoraa taasina waxay keentaa qaybsan iyo misleading lagu sameeyo ummadda iska daay website-yada telefoonka telefoon halka ku haystaayo every 10 minutes wasaaradina waan la hadlaa wadankina waan la hadlaa marka xaqiiqda jira waan ogahay wallahi ma eego website-yada waayo I know qofka qoraya iyo waxa lagu qoraya baan ogahay qurbo jooga iska ilaaliya website-yada ka June baan ugu soo aadan waa maanta calanka qaadanay calankan imika halkan aad saarteen 16 June baan qaadanay maalinta khaladka la saxay si aad u weynaysaan si ka weyn u weynaayay xaqdan idin sheegaya midda kale taariikhda Somaliland ma aha SNM20 halgamaysi ma aha waa 140 sano SNM10 sano ku leedahay ma 10 sano SNM10 ka hadalaa mise 140 sano 140 ka hadla oo abwan markaad gabayada tirinaysaan 1884 ka soo bilow 18 May khalad 26 June kii khaladkii la galayna in la saxay ku dara laakiin 26 June weyneeya waayo caalamka aqoonsi baynu ka rabnaa waxaan leenahay dal baanu nahay waxaan leenahay xor baanu ahayn goormeedu xorownay 26 June taariikhdeena hal mideeyo ciisihii Djibouti xadkeeda ku laayay gaalada ee hal lagu qoro meesha yeenaanu intii yarada lama iskaranaa intii yarada halgankii SNMta anu waa qirsana laakiin halgamo badan baynu galay war taariikhda aynu isku darsano si aan wixii wada yeelano hadaad SNMtu ka sheekayso waanu isgaranaynaayo dee waxaan oranayaa SNM baa laga sheekeynaya dib baan u baxayaa marka ehel baynu nahay dad islaam baynu nahay Somaliland waa qaran Somaliland way ka gudubtay waqtigii qabiilka halgankii SNMta waa laga soo gudbay wadan baynu nahay dal baynu nahay walooyinkan khaatimo imika halkan rag baa fadhiyo iga muuqdeen waxay igu yiraahdaan arniyo ma SNM baan anagu galnaa
waana sanamtii way dhammaatay waa wadane waxaa la rabaa markaa idinka markaad leeyahay waxaan malaynaa inaad fahmaysaan inaad ogaataan maanta inaynu qarannahay inaynu qabiil ka gudubnay from Looyacdo ilaa iyo Yoocada inaynu dalnahay aqoonsigeenna waxaa number 1 waa midnimadeenna annagu haddaanu waddanka gudihiisa joogno waa midownay qurba joogay midoobo iskasbada oo iswata midnimo iskoogna intaan markaan ka gudbo aad baan ugu faraxsanahay waxaan soo maray maalmo Copenhagen iyo Oslo waa meesha kaliya saddexda xisbiba ka hadleen halkan waa idin hambalyeynaya inaad isku duuban tihiin oo isku mid tihiin aad baan idinku hambalyeynaya saan ku wada please معارضك waxaan leeyahay aynu kala saaro danta guud iyo tagaarka waxaan leeyahay aynu ku tartanno codka iyo waddanka gudihiisa iyo inaan ku tartamin dibadda igar hal hada waan idin waarinayaa qolada معارضka حسين مي اقعد يا وطني حمسي حمسي waxa weeye dal baynu leenahay wayna ga dhaxeeyaa dal fiqiir oo aan la aqoonsanayn baynu nahay wax kasto kale oo adanaga ama hoos noogu dhigayso xukuumadda ka socdaano ama nagu baabiinaysa samee laakiin Sweden warqad ha u qorin dacwada waad leedahay hal hakiyo deeqdii la siin jiray Somaliland way waxaad ka joojinaysaa adigu tusaale ku soo qaadanaya ma kumalihi waxa qortay waxaad xalay ma habeen hore waxaan kula qoladii Oslo qoladii sanamtu dagaalkii siyaad barre ku wadeen ayay qoraalo badan sameyn jireen oo safaaradaha dhigi jireen kiiba ka soo noqon laayeen ورمك الدلباتين سياد برهان الله دقالما ميسان مدحوينه سيلاني سياد برهما كدا يقرأ الله دقسان سفاردها وحد توجيسان تيفيدات كهذا لسان الدولة كلها لي لسان وحد توجيسان إذا عادها كهذا لسان دولة واحد كلها اللي يشامود كليسي هدي الدليل لسان ورقة صغرى عادوا بدن بين ولا نهاي عادوا كفر حياة مركو أركو إنه isdaliil inoo iscaay inoo istacweyn inoo tiifiyada ka hadlayna adaguna aad ugu farxaya معارضك waxaan ka codsanayaa saad jeclaan lahayd in lagu dhaqmo marka adigu xisbul xaafid tahay wala dhaqan xisbul xaafidka hadda xukuumaddu xukunku waa meerto shalay udub baa joogay maanta kulmiyaa joogay barito mid kale joogi kara wasida aad rabto in laga yeelo markaaga si la midoon hadda ka jooga muhiimadana si wadanka iyo dadka marka معارضك أنت أصلاً لا هي ذاتك عدك كترت سو بندق وحا أذكر دليل الحكومة ده نجي يودي ودن كوديسية إسلام مرهان تنا سو بندق وحا أذكر جد ونان يسوع حسب المحافظ كمان تشرع أذكر جد ونان كرتو الدلك هو قبنيس لكن تيفية دي إنترنت ده كل جن مني برايك راين يجلس تا أنت أصلاً كجب حاجة معارضك شالية ده وحنا مدوبة ومده هذا أو إسكسبضة يدنكو السوتشيت إسكمد باتين إسكدون بينو سارنا إسكدون أينو سارنا إسكدت بيننا إسكمد بين إما كإنتي نادنا سوري سنو مده أنا قرابا نقولين والله يكون يشوف هل قويس بيننا مصيبة dhacday dagaal suuqaya dhacay ka soo kabanay waa laga bugsaday imika marba jihaadkii la jihaadayay ingiriisku waajibaha marba kiisiyaad bar waajibaha maanta waxa waajiba midnimadeena
waxa waajiba inaynu isku duubnaano